mudane madaxweyne sida aad la socoto shirkii ka dhacay magaalada Kismaayo ee lagu soo doortay isla markaana lagu dhaariyay inaad tahay madaxweynaha gobolada Jubbooyinka go'aamadii ka soo baxay madaxdii dawladaha igad waa ay qaadaceen shirkaas waxaana ay sheegeen in shir degdeg ah dawladda federaalka ay isugu yeerto dadka dega Jubbooyinka oo lagu qaban doono magaalada Muqdisho adigu sidaad u aragtaa arintaas horta aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa hadalka waa hadal nimbasi uu yiri hadalka soo baxayna ma ahayn mid qaadacaya shirkii ka dhacay Kismaayo 7 bilood soo socday muddada 4 sano ah barnaamijkiisu ku dhawaa waxa laga hadlay waxay ahayd in si roolkii dawladda loo soo celiyo la isugu yimaado shir ay dawladuna iyadu mas'uul ka tahay oo dawladda iyo stakeholders ka erayga macnaheedu lagu macneeyay oo ah inay isugu yimaadaan waxaan isleeyahay markaa macnaha waanu ka fahnay waxa shirkaas in loo qabanayo dawladda iyo maamul goboleedkii Jubbaland ee la dhisay ilaa inta process-ka hadda uu marayo mas'uuliyiintiisa in la isu yimaado waxa laga wada hadlayaa ay noqoto sharciyadii iyo ansixintii iyo dhamaystirkii inta ka dhiman dhismihii maamul goboleedka Jubbaland marka adiga doorashadaada ee madaxweynenimo marka halkay ka bixi doontaa isleedahay marka maadaama la yiri shir in la isugu yimaado mar kale Muqdisho taas waxay muujinaysaa marka shirkii ka dhacay magaalada Kismaayo in dib loogu laabto miyaysan ahayn maya shirka lagu laabanayo shirkaas dadka samaystay sharciyadiisina wuu lahaa dadkii shirkii lagu dhisay dawladda federaalka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ka qayb galay qaybtoodii deegaanka deganeed baa deganeed waxa laga hadlayaa waxa weeye darafyada ay khusayso ah maamul goboleedka Jubbaland oo mas'uuliyadiisa hadda qaarkeed la dhisay iyo dawladda federaalka inay isu yimaadaan oo ay ka wada hadlaan waxa laga wada hadlayaa waxa weeye arrintii sidii dawladuna ay roolkeedii hogaamiyeed u yeelan lahayd maamulkiina loo dhamaystiri lahaa macnuhu ma aha waxba kama jiraan wixii la dhisay iyo wixii process-kii inta soo socday shirkii la qabtay waxba kama jiraan ma aha macnuhu marka waxa isleeyahay taas malaha tafsiirka khalad idin ka galay dhanka kale markaad eegto marka dawladda federaalka horeyba waxay u sheegtay waan walba ka soo baxa shirka ka socday magaalada Kismaayo inaysan aqbali doonin waana ay sheegeen markii adiga lagu doortay in shirkaasi go'aamadii ka soo baxay aysan aqbalin haddana waxaad la socotaa in igad kulankii xalay isugu yimaadeen Addis Ababa ay ku ansixiyeen in dawladda federaalka loogu dambeeyo maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyadoo la waafajinayo dastuurka dalka waa fiican tahay horta waxa weeye dawladdu waa federaal waxay federaal ku tahay dastuur bay leedahay waxa dadka kala hagaya waa constitution-ka wadanku uu leeyahay shirkaani dastuuri buu ahaa waxa lagu soo dhistay dastuur buu ahaa wixii khaladeer ka yimaada dastuurka la iska hor yimaado isaga la isku saxaya laakiin ma jiro wax la yiraahdo haday hore u tiri ma aqoonsanayna hore waanu u yeedhnay dawladda waanu u yeedhnay roolkay ku lahayd baanu dawladda hogaaminteeda ha qaadato iyadaan ku soo celcelinay haddana midii baan leenahay shirka igadna wuxuu ahaa in la isu yimaado arrintii la dhamaystiro laga wada hadlo haddii dawladdu ay diido oo iyadoo ay tiraahdo shirkaasna ma aqoonsanin rabitaanka shacabkana shaqo kuma lihin waa macno kale waxaan system federaal u ahaa dawladdu waa dawladdii Soomaaliyeed hadday diido iyaduna roolkeedii bay waayaysaa waxa weeyaan system baa la isugu yimid kii bay tahay inay qaadato hadday isagii diido iyadu waxay ku timid bay diidan tahay macnaheedu waxa weeyaan baarlamaanka federaalka wuxuu ka kooban yahay deegaanada Soomaaliya oo dadka reer Jubbaland ee federaalka baarlamaan ka mid ah way joogaan dawladda waxbay ku leeyihiin waxaan system wax lagu soo qaybsaday deegaamo iyo ku saabsan beelo marka